la sameeyo haddii uu moobilkaaga uu biyo kaaga dhaco. Ilowshaheena ama carruurteena waxay sababaan inay moobiladeena uu ka dhaco meelo aan la mahadin sida maraq dhexdii, saliid ama biyo. Haddii uu moobilkaaga uu ku dhaco biyo, raac tallaabooyinka soo socda kadibna ugu horreyn ka saar bateriga hana shidin. Tallaabada labaad, fur oo qalaji durbaba, kadibna dhig meel hawo fiican leh ama dhig meel leh ilays qoraxeed. Ha adeegsan inaad ku qalajiso aalado kulul sida aaladaha lagu qalajiyo timaha iyo inaad u dhaweyso dab. Tallaabada saddexaad, sidoo kale haddii intaasoo dhammi heli karin, tirtir kana saar daboolka hore iyo ka dambe, kadibna dhexgeli bariis dhexdiisa muddo 6 ilaa 8 saacadood. Haddii uu ku dhaco maraq ama saliid, ka saar bateriga kadibna ku fur biyo badan oo dhaq gebi ahaanba. Kadibna raac tallaabooyinkii hore. Haddii aadan samayn karin, la gaar goobaha farsamooyinka si aad u badbaadsato xogta kugu kaydsan moobilkaaga. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Fadlan ha ilaabin inaad noo reebto fikirkaaga ama aragtidaada adigoo inoogu reebaya qaybta commentiska ee hoose.